Haye, shimbirta waa dulduulaysa soo maa? Waxaad is lahayd meel saraad gaaraysaa. Waxaad is lahayd arjunaad hoos u soo dhigaysaa. Waa kan ahad bal ka xaxaabihe. Sidaas ayuu ugu kacamay Arjun. Saara subaxii dambe waxay ku soo kacday iskoolka gardenkiisa. Iyadoo suxsan ayay ku soo naxday halkaas iyadoo banaankii jiifta. Suara waxay indhaha kala furtay iyadoo aan asturnayn maryihiin hoos u jiidatay. Waxayna aragtay ardaydii oo dhan oo dhammaan wada eegaysa kuna sheekaysanaysa. Suara waxay soo aaday dhanka musqusha hablaha iyadoo runtii u yaaban aad iyo aad waxa ku dhacayna aysan garan karin. Hal xabo kama xasuusato wixii ku dhacay xalay. Keliya waxay xasuusataa inay wax ku dhaceen, laakiin sidee wax ugu dhaceen xabadna kama xasuusato. Runtii waxay eegaysaa nabarada ku yaala korkeeda iyo sidii dharkeeda u jeexan yihiin. Aad ayay u yaabaysaa. Waxna way humaagna way aragtaa si ay wax u dhaceenna ma garanayso. Waayo taas waxaa ku sababtay dawadii ugu daray kaniiniga Arjun. Aad ayay u naxsan tahay. Waxa waaye aad ayay u calool xumaatay. Swati inuu sidaan xun u galo oo wuxuushnimada Arjun muxuu ka helayaa? Maxayse dhib oo leedahay haddii ay wiil ee gabar ka hormarto ee ka hormar warnaato maxay tahay dhibaatada ay ragga u keeni karto? Midaas ayaan garan lahay. Aartii waxa kaliya ay rabtay inay ogaato waxa ku dhacay. Hal dariiq kaliya inay ku ogaan kartaa. Dariiqaasna wuxuu ahaa iyadoo dhanka dhakhtarka aada. Hadda dhakhtarkeedii ayay aadaysaa aartii. Aad ayaan uga xumahay aartii. Waa lagu xoogay adiga. Si cad ayay ugu sheegtay dhakhtaradda iyadoo dhankeedii soo aaday. Calaamadaha korkaaga ku yaala waxay caddeynayaan in lagu xoogay adiga. Sidaas ay ku tiri dhakhtaradii Swati. Sidaas ay tahayna qofkii ku xoogay wax caddeyna uma hayno waayo wuxuu isticmaalay bambiro. Laakiin say ku dhici kartaa aniga waxba kama xasuusto. Wax walbo oo igu dhacay sideen ku ilaawi karaa wax walbo oo igu dhacay ayay weydiisay dhakhtaradda Swati. Dhiigaaga waxaan ka helnay daroogadaasoo kugu sababaysa inaad xasuustaada aad ilowdo muddo aad u gaaban. Adiga arrintan waa inaad booliiska u sheegtaa.
haddaad u baahan tahay aniga waan ku caawin karaa Swati. Sorry, ma'am. Bar is closed. Swati waxay isku dayday inay ku soo laabato baarkii habeenkii ay joogeen ka wada caweynayeen si ay bal xoogaa yar oo xasuus ay u hesho. Waxay timid baarkii oo la xiray, xasuusteeday gadaal u celisay, weli wax bay xasuusan la'dahay. Biyo ayaa qof u soo dhiibay, biyahaas ayay ku xasuusatay in hadda qof biyo siiyey, laakiin qofkii uu ahaa aysan garanaynin. Aartii waxay ku soo laabatay hostelkii wiilasha. Macnaha markii jaamacad la dhiganayo hostel waxaa la yiraahdaa ardayda meesha ay degaan gabdho iyo wiilal ay u kala baxaan si ay bal xoogaa u xasuusato. Waxaana xasuusteeda soo galay in albaabka markii maraysay meeshaan lagu xareeyay mar xanuunna uu jilibka ka soo gaaray oo taasoo sababtay inay dhacantaan ay dhacday ah. Dib ayay xasuusteedu gashay waxayna aragtay Arjun aad iyo aad u qoslaya. Markaas ayaa shaki ku dhashay. Kadibna toos ayay wajigiisa u xasuusatay inuu isaga ahaa wixii falkan ka dambeeyay. Swati oo xanaaqsan ayaa dhankii Arjun u soo beertay. Way u timaaday waxayna weydiinaysaa ma kula hadli karaa hal mar Arjuno. Isagoo aad iskula weyn oo jejeesay wuxuu ku yiri maya. Qasab ayay ku soo wadatay si ay gooni ula hadasho ay weydiiso wixii dhacay. Maxaa dhacay? Maxaad u baahan tahay? Maxaa rabtaa ayuu ku yiri waxay tiri wixii xalay taa rabaa inaan ka hadalno. Xalay maxaa dhacay ii sheeg uu yiri. Waxay tiri waa ogahay in adiga saan ii yeeshay sababta sidaan igu yeeshaysa maxay tahay? Maxaan kugu sameeyay? Maxaa dhacay ii sheeg? Waxba aniga ay isku meermeerina dhahe waa ogtahay adigana anna waa ogahay waxaad igu samaysay xalay inaad daawada daroogo igu dartay kadibna aad kufsatay. Runtii Arjun wuu ku inkiray wuuna ku jeesjeesay hadallada ay ku oranaysay oo dhan wuxuu ka soo qaaday mid aan waxba ka jirin. Kadibna wuxuu ku yiri ma sidii oo kale aragtaa aan dirtaan ma u baahan tahay inaan kuu sameeyo. Aad ayay uga carootay Swati waxay samaysay inay garan weynay. Swati oo aad iyo aad u xanaaqsanaya waxay uga hanjabtay inay dacweynayso arrintiisana ay booliska u gudbinayso. Laakiin Arjun oo iska waalin ayaa wuxuu yiri maana rabtaa inay dacweysid. Ma afkaana igu dacweynay bal horta intaad ii dacweyn horta bal isugu waxaan ku tusaaya. Wuxuu soo bixinayaa video ayuu leeyahay arag haddii aad afkaaga kala furtidna waxaan ku gelinayaa internetka oo dhan. Ceebtaadina meel walbaan ku faafinaya adigana sharaftaada halkaasay ku dhamaanaysaa weligaana ma lagu guursanayo ultimana waa isdilaysaa. Hadda asxaabteyda oo kaliya ayaa kuugu baashaashay hadhowna adduun weynaha oo dhan ayaa lagaaga baashaalaya sida lagugu raaxaysanayo videogaaga haddii aad afkaaga isku furtid iska jir adigan baa dhib isku geystay. Arjun midaasuu Swati ugu hanjabay wuuna ka ceeriyey meesha ay joogtay. Halkan ayaa mugdi uga bilowday Swati. Waxaa la gaaray jaamacaddii imtixaankii labaad ee lagu kala bixi lahaa. Runtii Swati su'aal walba oo la weydiiyo aad ayuu ugu hanjabay isagoo si hoose ah videogu ka hayay u diraya. Swati? Are you fine, Swati? Waxaa la gaaray maalinkii xigtay
sidii oo kale ayuu yeelay hanjabaad ilaa uu ku qasbay inay fasalka iskaga baxdo. aakhirna gabadhii sidaas ayay imtixaanka ku dhacaysaa. fadlan haddaad igu cusubtay subscribe-ka ii saar, waa ii muhiim, walaasha ayaan ahay. like-tan ha iga iloobin, comment-kan ii soo qor fikirkaaga iyaan idiin soo badiyay in kale haddii aad ka heshay thumbs up. Thank you so much. waxaa la gaaray xilli uu dabaaldegaya Arjun, laakiinse maxaa ka dambeyn doona nabsigu gabadha ka galay. waxaa arkay yarkii saaxiibkiis ahaa ee aad uga xumaa, wuxuuna arkayaa inay dhacday Swati. Arjunna uu baasay, halkaasna si fiican ayuu uga ogaaday inay wax jiraan. स्वाति फेल हो गई। Swati iyadoo meel murugo la fadhida ayaa saaxiibadeed u yimaadeen, waxayna ku yiraahdeen bes intaan ka badan noo sheeg waxa jira, kuuma dulqaadan karna, dhibka kugu dhacay waa maxay, sababtaa ku dhacday maxay tahay, 3 sano oo isku xigto adigoo qaadanayay kaalinta koobaad, sidee maanta ku gashay kaalinta ugu dambeysa aad dhacday macnaha, noo sheeg maxaa kuugu dhacay ayay ku dhaheen. iyadana waxay ku tidhi waxa igu dhacay ma jiraan, fadlan faraha iga qaada, keliga ayaa rabaa inaan ahaado. waan ku baryaynaa Swati, maxaa kugu dhacay noo sheeg, fadlan waa idin baryaaya, waa idiga codsaday, idhaafa, ammaan isiiya, faraha iga qaada ayay ku tiraahday. ayagoo yaabanaya wuxuu ku yidhi wiilkii kale, aniga aqaanan wax ku dhacay, waana idin sheegayaa dhibka ku dhacay. qorshahan oo dhan waxaa ka dambeeyay Arjun. habeenkii kalaabka markaan joognay wuu ila dagaalay, kadibna banaanka ayuu ii saaray. aniga banaankan iska aaday, waxaana ogaaday inuu cabitaanka kugu daray daawo. ड्रिंक में कुछ मिक्स किया था। kadib waxaan arkay Arjun iyo asxaabtiisii oo sii galaya hostelka, waxaana weydiiyey aawo Swati. run ahaantii waxaan rabay inaan ka celiyo oo isku dayay, laakiin labadooda ayaa iga hor joogsadeen. wayna i qabteen, wayna i xireen, waxayna igu soo xireen musqusha. intii kaloo ku dhacdana Buuja ayaa u dhammaystirtay dhibaatadii uu u geystay iyo inuu kufsaday iyo wax walba uu ku suubiyey. hah cadowsana kaas, uf. Swati, dhibkan oo dhan ayaa kugu dhacay, maxaad nooga qarisay? anaga waad ogta saaxiibada inaan nahay, inaan garabkaaga nahay, inaan ku caawin karno mar walbo, maxaad nooga qarisay? iga dhaafay leedahay marka, waxba idinma sheegi karin, wax walbo igu dhacay way igu dhaceen. saaxiibadeed ayaa si wada jira waxay u dhaheen booliska ayaan u sheegaynaa arrintan, ninkana waan dacweynaynaa. laakiin iyada ka hor istaagto waxay tiri maya, taasna ma dhici karto, waayo aniga videogayga ayuu hayaa, internetka ayuuna i gelinayaa, waa noloshayda dhan ayuuna caawinayaa, ninkaas waxba kama qaban karo wuxuu igu sameeyey. dhanka kale maamulihii ayaa Arjun u yimid, wuuna u hambaliyey, wuxuuna ugu hambaliyey in la qaatay isaga, uuna imtixaankii isaga gaalay kaalinta koobaad. sidaas la ajligeedna ay soo dalbatay scholarship jaamacad ku taala Ingiriiska. aad ayay uga xumaatay Swati. I hope so. All the best. थैंक यू सर। स्वाति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कंपटीशन बहुत ही टफ था और इसलिए ये यूएस स्कॉलरशिप तुम्हें मिलती है। अपना मुंह खोलने से पहले ये सोच लेना, ये जो तेरा वीडियो है ना, इंटरनेट पे ऐसे फैलेगा तू सोच भी नहीं सकती।
यार हम लोग yaa akhi waa inaan u sheegnaa aan aswarti garab ku siinaa si ay u dacweysa ninkaas maya ay leedahay gabadhan waayo video ayuu ku hay wayna cabsanaysaa gabadhi kale ayaa waxayna leedahay laakiin inay haddana ka cabsato maaha waa inay ninkaas dacweysaa saaxiibtooda ayaa timaaday swarti waxayna tiri waa runtiin waxaan idinku raacsanahay inaan dacweyno maanta laga bilaabo go-aan waxaan ku gaaraynaa inaan ninkaas dacweyno arjun wuxuu baabi'iyey nolosheeda mana ogolaan doono inuu gabar kale nolosheeda u baabi'iyo siduu aniga tayda u baabi'iyey wax walba ayuu iga hor istaagay mustaqbalkayga ayuu iga hor istaagay jaamacadayda ayuu iga hor istaagay wax walba aan ku fikiraya ayuu iga hor istaagay anigana kama yeelaya inaan tiisa u tixgeliyo waa inaan ka hortagaa si walba ay noqoto aan wax walba sameeyaa sidaan ninkaas xaqa u soo saari lahaa hadduu ugu bato fideogayga ayuu soo bandhigayaa hadduu ugu bato dadkoo dhan ayuu igu faafinayaa wax kasta ha sameeyo ha igu qaadato anigana wax walbo waa inaan ka arsadaa mid kaliya idinka codsanaya inaad gacni siisaan waayahay dhaheen sidaas ayay garab ku siinayaan saaxiibadeed oo dhan macalaa wiilkii saaxiibkiisa ahaa arjun iyo saaxiibadiis oo aad u faraxsan ayaa waxay ku leeyihiin arjuno way kuu dhacatay wixii maanta laga bilaabo waxaad u socotaa dibadda jaamacaddaas ayaana aadaysaa wariyadaadiina waa rumaysay naaga caddaana haddaad aragtidna ha naga qarin waxa ku samaysa iyadoo sidaas leh ayaa swartii waxay usoo dirtay message waxayna ku ballamisay iskuulka meelka gaar ah iigu imow ayay tiri aad ayuu u farxay ayagiioo kajimaya waxay leeyihiin haye ma waxay u baahan tahay inaad mar labaad video kale ka duubto bal haddii aad ka duubto noo soo keen isagana aan kula daawane sidaas ayuu ugu tagayaa hey haye meeshan cidlada ah maxaad iigu yeertay ayuu yidhi waxay tidhi inaan wada hadalnaa rabaa isaga wuxuu ku oranayaa meeshan muu eka inaad wada hadal aad rabtid marka waxay leedahay inaan kula hadlaan doonayaa oo keliya waxay ku tiri inaan arrintii xalinaan u baahanahay si wuxuu ku yidhi xal sidee ah ayaad rabtaa inaad gaarto waxay ku tiri arjun waxaan u baahanahay inaad sawiradeedii fideogayga aad tirtirsato wax walba oo igu saabsanna aad aniga igu soo wareejiso aad ayuu ugu diiday taas haddii aad intaas tahay waxaad iigu timid koley igama helaysid fideoyadaasna iyo sawiradaasna lagama yaabo inaan weligay tirtiro wax kale ma haysaa ayuu ku yidhi intaas keliya maahani tiri fideo iyo sawiro keliya maaha sheekadan kugu yimid waana nin ay raaligelisaa wax walba oo dhacayna aad ka laabataa wax walbana waa inaad maamulaha u sheegtaa oo dhacay ayay tiri dembigaaga waa inaad qirataa wax walbo xaqiiqahna sheeg haddii aad taa samayso anigu ku cafinayaa run ii sheeg maanadii cafinaysaa hal mid oo keliya ayaan ku oranayaa cadaabta gal ayaan ku leeyahay sidaas ayuu ku yidhi aniga waxba kaagama baahni dan kastoo aan lahaa waan kaa gaaray cirka u bood dhulka gal aday kuu taalaa meeshaa rabtid aad saaxiibay waxba igama qaadi kartid aniga sidaas ayuu ku yidhi wuuna ka tegay haye idinkana maxaa rabtiin maxaad ii hor taagan tihiin waddada iiga hor leexdaa idin dhahay
mudana ma soo geli karaa ayay ku tiri mudanaheeda. haa soo gal ayuu ku yidhaahday. ninba toogtiisa arjun wuxuu indhaha soo kala qaaday isagoo lagu haraarsan yahay ardaydii oo dhan ay ka wada duwanayaan video horkiisina lagu qoray arjun rapist meel walba looga qoray. aad ayuu u xanaaqay wuuna carooday laakiin maxay kugu taalaahay wax laga qaban kara male. wuxuu boodo wuxuu dhaco wuxuu jabo halkaas ayay filinkiisii kusoo dhammaatay. gabdhihiina sidaas ayay uga aarsadeen. tacadiga gabdhaha kufsiga waxaa laguu sheegayaa gabar walba hadday isaa u aarsan lahayd ama aysan dhibkeeda la aamusi lahayn dhibaato dhan gabar kuma dhici lahayn nin kalena dhibaato gabar uma geysan lahayn. arjun swari aad ayuu ugu xanaaqay wuxuuna ku yidhi adiga ayaa baxarkani geliyey soo maaha adiga ayaa dhibaatadan ka dambeeyey soo maaha ma ku cafinaayo haddaan ku tusayaa waxaad tahay. iga fuur anaa ku tusaya waxaad tahay waad i arki doontaa hal mar iga furfura. इसकी तो इसकी हिम्मत कैसे हुई छोड़ूंगा नहीं इसे स्टॉप इट अर्जुन suwaartii mudanaheedii ayay wax walba u sheegtay maamulihii iskuulka kadibna askar ayaa loogu wacay isagiina halkaas ayaa lagu xiraa waxaana lagu xukumay 7 sano oo xarig ah. suwaartiina sidaas ayay ku aarsatay mar dambena wiil dambe college ka dhiganayo kuma xadgudbin gabar dambe. suwaartii waxaa aad iyo aad raaligelin uga bixinayo maamulaheedii oo markii hore ku khaldamay oo si xunna ula hadlay. wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa haddaan nin fiican ahaan lahaa waan ku wareysan lahaa waxa kuugu dhacay dhibka kugu kalifay inaad dhacdo laakiin iga raali noqo maantana waxaan kuu sheegayaa mar labaad inaad imtixaanka aad gelaysid kadibna aad ka qayb qaadan doontid scholarshipkii. aad ayay u faraxday ayadii asxaabteedii dhammaan. sheekadeenni aan soo wadnayna halkaas ayay noogu soo gabagabowday. wixii markaas ka dambeeyeyna suwaartii waxay u fadhiisatay imtixaankeedii kadibna scholarshipkeedii ayay heshay. arjunna sidaas xabsi ku mutaystay. bye